calaykum daawade halkan waa xogta qarsoon muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa ciidamada TPLF oo dad badan oo rayid ah laayay iyo dadka ay ku xasuuqeen gobolka Amxaarada xasuuqa Tigray oo ka bilowday Amxaarada muuqaalkani ayaan ku soo koobi doonaa daawade haddii ay tahay markii ugu horeysay channelkayga ku soo gaaro magacaygu waa Yaxya Maxamuud Maxmed bartan waa xogta qarsoon daawade waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalada share gareyso sidoo kalena channelkaas subscribe saarto ciidamada TPLF ayaa 100 qof dad kor u dhaafaya waxay ku xasuuqeen gobolka Amxaarada ee Itoobiya dhaqaatiirtii saraakiisha deegaanka ayaa sheegeen in ka badan 120 qof oo rayid lagu xasuuqay gobolka Amxaarada ee Itoobiya horaantii bishan kadib markii dad beeraley ay weerareen ciidanka jabhadda TPLF ee waqooyiga Itoobiya xasuuqa ayaa horaantii September ka dhacay tuulada Jena oo u dhow magaalada Debet sida uu sheegay Sawnet Wabipilan oo ah maamulaha deegaanka ee Debet iyo Jericho degan afyeenka magaalada ku dhow ee Gondar sida ku warantay wakaalada wararka Reuters ilaa iyo haatan waxa soo helay 120 meyd dhamaantood waxay ahaayeen beeraley aan waxba galabsan laakiin waxaan u maleynayaa in tirada laga yaabin intaas ay ka badan tahay waxaa jira dad maqan ay yiri Sawnet Malugeta Maleza oo ah madaxa xafiiska isbitaalka Debet ayaa waxa uu sheegay wakaalada wararka AFP 125 qof ayaa ku dhimatay tuulada Jena aniga qudheeda waxaan arkay xabaal waradiyo badan ayuu hadalkiisa raaciyay Malugeta ayaa intaas ku daray dadka deegaanka ay wali baadiyoobayaan meedka tirintuusina ay wali socoto ciidamada Tigray ayaa geystay xasuuq kadib markii la wareegeen gacan ku haynta deegaanka muddo kooban inkastoo hadda ay deegaanka dib u wareegeen ciidanka federaalka tirada rasmiga ee dhimashada si madax banaan looma xaqiijin karo ciidamada Tigray ayaa markii dambe soo saaray bayaan ay ku diidayaan waxay ugu yeereen eedeyn la been abuuray oo ka timid dawlad deegaanka Amxaarada waxaana ay beeniyeen in wax lagu ay ku lahaayeen dilka dadka rayidka waxaan si cad u diidanahay sheegashada ku lug lahaanshaha ciidamadeena ee dilka dadka rayidka ayaa lagu yeeray bayaanka oo soo dhigay afyeenka Getachew Redo Twitterka waxa uu sidoo kale ka baaqday baaritaano madax bannaan oo lagu sameeyay dhammaan xasuuqyadii ka dhacay gobolka guddiga xuquuqda aadanaha Itoobiya oo ah hay'ad ku xiran dawladda laakiin madax bannaan ayaa sheegtay inay ka argagaxeen wararkaas isla markaana hay'adaha sharci fulinta ay baarayaan si loo xaqiijiyo tiradii aqoonsiyada dadka la dilay ee warka guddiga sii raaciyeen ciidamada TPLF ayaa xasuuq ba'an waxay ka gadeysteen qaybo ka mid ah gobolada Amxaarada waxaana la tilmaamay in xoogag gododsan oo ka soo jeeda Tigray ee mar kaliya tuulada ku dileen dadkaas Amxaarada ah dilka waxa uu ka dhacay 10 kiiloomitir meel u jirta magaalada Debet koodii iyo labadii bishan taas oo ah maalmihii ugu badnaa oo Tigrayga dhimasho ay geystaan ciidamada Tigray waxay soo saareen bayaan oo ay arintan isaga bixinayaan balse waxa ay ciidamada Tigray caan ku yihiin hadba goobta ay tagaan dad shacab ay ku xasuuqaan Tigray waxay doonaysaa in guud ahaan gacanta ay ku dhigto dalka Itoobiya ilaa ujeedkeeda ay dhameeyaan ma joojin doonaan gulufka ay ka wadaan guud ahaan dalka Itoobiya afyeenkooda Getachew Redo ayaa dhawaan waxa uu sheegay in dagaalka ka dhanka dawladda federaalka aysan joojin doonin ilaa cagta dhiigga ay mariyaan cid kasta oo taabacsan dawladda federaalka iyo ciidamadii soo weeraray Makalle taas darteed waxay sheegeen inay doonayaan in Addis Ababa gacanta ay ku dhigaan dawladda federaalka ayaa aqbashay xabad joojinta ay ku baaqeen Mareykanka iyo qaramada midoobay balse ciidanka Tigray waxa muuqata wali inay wadaan hawlgalo saf ballaarsi ah iyadoo ay xusub mudan tahay in Amxaarada Amxaarada qaybo ka mid ah ay qabsadeen sidaas oo kale ciidamadu waxa ay jareen wadooyin muhiim ah dalka Itoobiya sidoo kale Tigray waxay dhawaan dhaceen cunno iyo raashin loo waday Amxaarada waxaana ay sheegeen in ayaga oo dadkoodii la laayay qaarkood macaluul darro ay heeso in aysan ahayn in lama garamarsiiyo raashin iyo sidoo kale gargaar Tigray gudaheeda waxaa ku dhibaataysan haween badan kuwaas oo kufsi u geysteen ciidamada federaalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea waxaana Tigray ay sheegeen in haween iyo yaraanba aysan u kala dhaafi doonin gobolada Amxaarada sababtuna ay tahay in haweenkoodii la kufsaday qaarkoodna wali isbitaalada ay ku jiraan xaaladda ka taagan dalka Itoobiya ayaa mid qasan waxaana marba marka ka dambaysa ay sii noqonaysaa xaalad
u muuqata mid quus ay ka muujinayaan guud ahaan beesha caalamka waxay marar badan ku baaqday in la joojiyo xabad joojinta dalkaas ka socota balse Tigray dhegna jala kuma siin baaqyada ayagoo marar badan ku baaqay in haddii xabadda ay joojinayaan qasab ay tahay in dowladda federaalka ay furto dhaqaalaha guud ahaan gobolka Tigray oo xanibtay iyo in sidoo kale mucaawino degdeg ah gobolkaas la geeyo. Abiy Ahmed ayaa arrintaas iska mashquulinaya isagoo doonaya in mar kale weerar rugaal celis ah ku qaado dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray. Itoobiya arrintani dadka siyaasiyiintu waxay kaga hadleen arrimo kala duwan ayagoo sheegay in haddii uu sii socdo dagaalkan muddada 10 bilood ka badan sii socda ay dhici karto in dagaallo sokeeye dalkaas gacanta u gasho taas oo ka dhigi karta in qowmiyada loo kala dagaalamo. dhawaan waxay ahayd markii canfartii Soomaalida ay dagaalameen sidoo kale canfarta ayaa dagaal kula jirta ciidanka Tigray waxay dagaal kula jiraan Amxaarada qowmiyadaha kale ee yaryar ee dalkaas ku nool. Abiy Ahmed ayaa waxa uu shacabkii dhalinyarada dalkaas ugu baaqay inay isu qoraan ciidanka si loo badbaadiyo dalka Itoobiya oo uu sheegay in cadowga Tigray gacanta ay ku dhigeen balse saraakiisha Tigray oo uu hogaaminayo Gabramichael waxa ay marar badan sheegeen in dalka Itoobiya uu hayo cadowgaasna uu yahay Abiy Ahmed sidaa daraadeed ay dalka ka saari doonaan guud ahaan Addis Ababa iyo magaalooyin kalena gacantooda ay ku dhigi doonaan. Afhayeenka Getachew Redo wuxuu dhawaan sheegay in dagaalka socda ee Amxaarada xilligan galay ay sii wadi doonaan isagoo wacad ku maray in Amxaarada ciidankooda dhulka ay marsiin doonaan balse waxa uu ka gaabsaday in dadka shacabka ay xasuuqi doonaan. Afhayeenku waxa uu sheegay in ujeedkooda uu kale u yahay inay la dagaalaan qof kasta oo hub wata balse aysan taawaneyn dadka wax magaratada oo uu kala jeeday haweenkii dhalinyarada aan hubka wadan. sidaas oo kalena saraakiil kale oo Tigray ka tirsan ayaa waxay sheegeen in xitaa mararka qaar ay kufsan doonaan haweenka maadaama ayaga haweenkoodii lagu kufsaday Makalla qaarkood darbiyada ay jiifaan ilaa iyo xilligan daawo iyo isbitaal midna aysan u hayn. arrintaas waxay keentay walaac xooggan oo guud ahaan dunida laga muujiyo. Tigray waxay jareen dhul badan oo ka mid ah dalkaas taas oo ah mid kaliya saameynta u keentay guud ahaan dalkan. Itoobiya waxay markani wajahaysaa xaalado siyaasadeed oo marka ka dambaysa lugta u sii gelinaysa caqabado kala duwan sidaa daraadeed waan eegi doonaa halka ay ku dhamaato. muuqaalkeeni maanta waa naga intaas daawadayaal nabadgelyo.